diyaaradda B2 Isbeerig. Diyaaraddan waxa lagu naanaysaa diyaaradda humaaga, waxaanay qaadaa qumbulada culus. waana diyaarad horumarsan, waxayna awood u leedahay inay iska qariso raadaarka, waxaana sabab u ah qaabka ay u samaysan tahay iyo maadooyinka laga sameeyey. waxaana markii ugu horreeyey qorsheeyey inay sameeyaan diyaaraddan saynis yahanno Jarmala wakhtigii lagu guda jiray dagaalka labaad ee adduunka. waxaanay dawladihii samaynayay diyaaraddani isku dayeen inay u maraan waddo kasta oo ay ku heli lahaayeen diyaaraddan. maxaa yeelay waxay awood dheeriya u leedahay inay weerarto saldhigyada ciidamada iyo diyaaradahaba iyada oo aan raadaarku qabanayn. dawlado badan ayaa isku dayey inay sameeyaan diyaaraddan, waxaana ugu horreeyey oo sameeyey diyaaraddan Maraykanka. waxaana duulimaadkeedii ugu horreeyey ay duushay sannaddii 1981. waana diyaaradaha qaada qumbuladaha nukliyeerka. waxay ciidamada Maraykanku ka sameeyeen diyaaraddan 20 xabbo oo keliya. si taa la mida waxaa lagu tiriyaa diyaaradaha adduunka ugu qaalisan. qiimaheeduna waxa uu gaadhayaa $730 milyan oo dollarka Maraykanka. waxaanay hawada ku jiri kartaa muddo dhan 24 saacadood. waxaanay leedahay awood burburineed oo weyn, taas oo u dhiganta awoodda 35 diyaaradood. wuxuuna raadaarku qabtaa markay furto albaabka ay ka soo daadinaysa bambooyinka. waxaanay ahayd diyaaraddii ka qayb qaadatay awooddii ciidamadii isbahaysiga. waxaanay baabi'isay isbuucii ugu horreeyey 33 bartilmaameedyadii ku yaallay Serbiya. waxaana lagu qiyaasaa duuliyayaasha awoodda u leh inay duuliyaan diyaaradahan ilaa 70 duuliye oo keliya. waxaana duuliya 2 duuliye. waxaanay ka mid tahay diyaaradihii uu midowga Suufiyeed u taag waayey. maxaa yeelay waxay soo geli jireen hawooyinkiisa weliba iyagoon raadaarku aanu qabanayn. waxaanay arrinkaas ku kalliftay inuu midowgii Suufiyeed uu ka boqo in lagu dhufto qumbulad nukliyeera. sidoo kale wakhtigan aynu joogno ayuu Maraykanku ku cabsiyaa dawlado badan oo adduunka ka tirsan, gaar ahaan kuwa ay xurgufta siyaasadeed ka dhaxayso. waxaana ay hawada kor u gashaa masaafooyin fogfog, taas oo mararka qaar ka dhigta mid aanay bani aadamku arki karin.